qof kasta oo inaga mid ahay waxa uu jecel yahay inuu guuleysto inuu guul gaaro ayuu jecel yahay inuu bulshada ka sareeyo uu jecel yahay haday dhaqaale noqoto haday aqoon noqoto haday masab noqoto iyo haday maamul noqoto marka maanta waxaynu soo qaadan doonaa formula yar ama qaacido yar oo sababi karta inaynu bulshada ka sareeyno ama aad bulshada ka horumartid waxaan soo qaadan doonaa formulada la yiraahdo Pareto law ama Pareto principle. Pareto principle maxay leedahay? Pareto principle waxay leedahay boqolkiiba 20 dadaalka aad sameeysid ayaa wax weyn ka bedeli doona noloshaada oo dhan. Si kale hadaan iraahdo 24 saacadood habeenkii iyo maalintii aad haysatid haddii aad in yar oo waqtiga kamid ah aad dadaal yar oo kooban aad sameeysid waxa laga yaabaa hadhow tolo dadaalkaasi inuu noloshaada wax weyn ku soo bedelo ku soo kordhiyo waxaan uga jeedaa 2 saacadood iyo 3 saacadood waqtigeena kamid ah hadaynu dadaal xoogan sameeyno oo ama aynu xirfad ku baranayno ama aynu aqoon ku yeelanayno ama aynu luqad ku baranayno aynu sameeyno waxa laga yaabaa hadhow tolo inaad noqotid noloshaada mustaqbalkaaga dambe mid ku shaqaystay xirfadda yar ee waqtiga kooban aad gelisay aqoonta waqtiga kooban aad gelisay tusaale haddii aad baratid imika xirfad tusaalahaan oo kale imika waxaan muuqaal baan duubay haddaad baratid muuqaal duubista iyo sawir qaadista oo 5 bilood ama 3 bilood aad ku baratid qalabkiina aad soo iibsatid bulsho iyo network wanaagsan aad dhisatid waxa laga yaabaa toddobaadkii inaad lacag badan ku shaqaysid ama laga yaabaa saacad yar oo lagu yeeray meel yar aad muuqaal yar u duubtay inaad dollar ka qaatid $100 $4 $50 aad ka qaadid kadibna aad ka manaafacadsatid toddobaadka laga yaabaa inaad $200 aad shaqaysid markaad bulsho sameeysid sida soo wareeyo muuqaal kaliya aad u qaaday qalabkaagina wada haysataa dhag waxa laga yaabaa inaad dhaqaale wanaagsan oo kugu filan aad bishii aad ka shaqaysatid bil walba aad gurigaaga iska warda muxuu ahaay maalmo lagu soo leeyahay halkaan oo kale dhag aad u duubtid xafladaha muxaadaraadka waxa soo dhan aad qabatid noloshaadana dabeetay ka kafayso hada waxaad dhigatay xirfadda waxaad baratay laga yaabaa 3 bilood ama 2 bilood kaliya inaad muxuu ahaay dadaal gelisay tusaale kale hadaan soo qaato nolosheena waxa laga yaabaa in aynu 5 saacadood wax dhigano 5 saacadood ee gelin koraan dhiganay hadii percent laga dhigo 20% ay ka noqonayaan 24 saacadood hadhow tolo waxa laga yaabaa ilaa jaamacadaas 20% wax u dhiganaysa hadhow tolo ku shaqo tagtid oo dadka ku shaqaysatid oo shahaado ku qaadatid oo aad mansab ku heshid oo xil lagu magacaabo aad bulshada kaalin weyn aad ka gashid hada waa 5 saacadood kaliya 24 saacadood dhan aad wax dhiganaysay weeyaan marka caadooyinka nolosheena bedelaya ee aadka u yar ee aan dareensanayn ay kamid tahay Pareto principle waa dadaal aynu sameeyno waqtigeena waqti yar oo kamid ah habeenkii 2 saacadood kamid ah hadaynu wax akhrisano aynu xirfad barano aynu qoon barano laga yaabaa inay nolosheena daba bedesho